sheekadan waxaa ku saabsan tahay ninkii lagu naanaysi jiray edeb xume. Ninkan lagu naanaysi jiray edeb xume waa nin akhlaaqdiisa aad iyo aad ay u liidato. Haddii adduunka oo dhan laga soo raadiyo qof asaga ka akhlaaq xun ma laga soo heli lahayn. Sida caadada iyo isluubta fiican ay ku jirto, qofka markuu la kulmo qof fool xun hortiisa ma uu sheego inuu fool xun yahay ee isaga ayaa iska qarsada. laakiin oday edeb xume waxaasi ma yaqaanin ee qofka hortiisa wuxuu ka dhihi jiray hadal walba oo xun inuu fool xun yahay. Maalin maalmaha ka mid ah, nin deriskiisa ah oo fool xuma ayuu arkay. Kadibna wuxuu ku soo booday, fiiri afkiisa si uu weyn yahay oo sidii xaaska oo kale. Adiga weligaa taasi ma samayn lahayd? Ma u malaynaa inaad u edeb xun tahay sida oday edeb xumo oo kale oo hadalkaa dadka hortiisa ugu sheega. Sidaasi oo kale ayuu kula dhaqmi jiray qof walba oo la kulmo. Wiil yar oo wadada maraya maalin wadada ku arkay ayaa wuxuu ku qayliyay, fiiri sida uu u caylan yahay, feero weyn oo butac ah. Raashin qiyaas ayaa loo cunaa, laakiin adiga caqligaaga waxaan ku cunin buwaala xun ayaad caqli ka dhigatay. Sidaas ayuu hortiisa qof walba ka dhigi jiray wax walba. Oday edeb xume markuu xaafadda lugeynayo, qof afkiisa ka ammaan heli jiray ma jirin. Qof uu caayo, qof uu carabkiisa ku taago, hadal fiican dhan afkiisa ma ka soo bixi jirin. Dadka oo dhan way nacaan sidaad qiyaasi kartid, sababtoo ah qof afkiisa ka ammaan heli jiray ma jirin. Maalin maalmaha ka mid ah, oday waayeel ah oo masaajidka u socda ayaa agtiisa soo maray. Odaygaas wuxuu ku taagsanayay baakoor yar. Markaas odaygii wuxuu ku yiri odaygii edebta xumaa, assalaamu calaykum. Oday dhaqan xume wuxuu ugu jawaabay, war naga tag odayoo tabarta xun. Tabar xumaa duqan waayeelka ah yaa baakoortiisa ka dafa dhulka ku dhacay. Odaygii waa isku ooyay, gurigiis ayuu iskaga laabtay. Hadal xumadii iyo aflagaadadii oday edeb xume uu kula hadlay odaygii waayeelka ahaa waxaa dhageysanaysay islaan waayeel ah oo u socotay suuqa inay ka soo adeegato, laakiin ku gambatay mid ka mid ah guryaha gadaashood. Ayadoo dhageysanaysay waxay dhexmarayay oday edeb xume ee duqii waayeelka ahaa. Markii ay aragtay waxay dhacay, way jiiraysay, gurigeed ayayna u laabatay si ay ugu badbaado aflagaadada iyo hadalka xun ee oday edeb xume. Odaygii waayeelka ahaa oo ay dariska ahaayeen oo qof aad u fiican ahaa ayaa dhowr maalin waayay oo aan arkin oday edeb xume. Markaasuu is yiri, bal fiiri waxaa ku dhacay, maalmahan maadan arkine. Markii gurigiisa uu tagay ayuu albaabka furay oo qaylo ku bilaabay, maxaa gurigayga ka soo doontay? Yaa ku yiri albaabkayga soo garaaca? Indhoolo ma tahay? Soo uma jeedid albaabkan ay ku qoran tahay iska tag, aniga ma ogoli, ma jecli qofna albaabkii inuu soo garaaco. Odaygii ayaa u sheegay inuu weydiin rabay oo kaliya inuu fiican yahay iyo xaalkii sida uu yahay. Markaasuu ku yiri, iska tag, waxba ha i weydiin, aniga ma ogoli qofna inuu i imaado wax i weydiiyo. Wixii xaal saas u ahaadaba oo oday edeb xume xaafadii oo dhan laga noolaan waayay ayaa dadkii xaafadda dhan isku yimaadeen oo laga tashaday xaaladiisa. Odaygii waayeelka ahaa oo ahaa nin aad iyo aad u caqli badan ayaa yiri, arrintan aniga ii dhaafa, oday edeb xume aniga aqaano. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu u yimid gurigiisa. Albaabka ayuu garaacay. Oday edeb xume wuxuu ku bilaabay hadaladii xumaa oo ahaa, soo indhoolo ma tahay? Ma akhrin kartid miyaa waxa albaabka ku qoran? Odaygii waa iska dhagatiray hadalkiisa. Guriga ayuu gudaha u sii galay oo fariistay. Oday edeb xume wuu xanaaqay, wuu gaduutay, si walba ayuu iska dhigay, si walba ayuu u cayay, laakiin odaygii meesha ayuu fariistay. Meeshii sariir taalay ayuu yiri, halkan ayaa seexanayaa ilaa 2 isbuuc meelna uma socdo. Oday edeb xume wax walba uu sameeyay, odaygii guriga waa ka bixin waayay. Wuu u diiday raashin inuu siiyo. Odaygiina wuxuu yiri, waxba kama qabo, biyo ayaan cabayaa. Oday edeb xume habeenkii koowaad kor ayuu aaday oo sariirtiisa ayuu seexday. Habeenkii labaad sidaas ayuu sameeyay. Habeenkii saddexaad sidaas ayuu sameeyay. Ilaa markii dambe oday edeb xume uu bilaabay inuu odaygii la sheekaysto. Odaygii ayaa bilaabay oday edeb xume hadallo qabow oo fiican inuu kula hadlo. Ilaa markii dambe oday edeb xume maalin walba oo wax yar uu soo dabcay oo dabeecadiisa uu bedelay. Ilaa markii dambe
labadii isbuuc markay dhammaatay ay oday edab xume iyo odaygii caqliga badnaa ay bannaanka isku soo raaceen oo dadkii xaafadoo dhan ay la yaabeen edabta fiican iyo asluubta ula soo baxay oday edab xume. markaasaa magaca laga bixiyey oo oday edab xume loogu bedelay edab fiicne. waxay maalintaas ka dambeysay oday edab xume waa laga nabad helay oo edab fiicnadii ayuu ku taagnaaday. dadkii xaafadoo dhan waxay ku noolaadeen nabad iyo barwaaqo iyo isjacayl. sheekadan halkaasay noogu eg tahay. ilaa inta aan ku kulmi doono sheekada tan xigta waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.